حتى لعل هدي هذا وحنا جاي رعنتان يلكم مركز كذا تام مهردي دي سوين سدي بدها تجي لهم بالله الله inaan samayn doono qiimo dhimis boqolkiiba 40 magaalada Booramo waxa laga daafuray habeenkii xalay dhakhtar cusub oo ka shaqeyn doona daryeelka ilkaha oo lagu magacaabo Saki Dental Clinic waxaana fadhiisan doona dhakhtar ajaaniba oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha daaweyntiisa iyo dhakhaatiir Soomaaliya waxaana kala soo qayb galay xarig jarka meherada mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen bismillah ala barakatullah culimadiin waxgarad aqoon-yahan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Booramo qaarkood xogayaha dawladda hoose isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal bahda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee Booramo dhakhaatiir iyo madax kale barbilow waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha meherada Dr. Saki isagoona faahfaahin kooban ka bixiyay horta klinikani waxaan ku soo kordhinay qalab casri ah oo hore aan loo isticmaalin dalka danay magaaladeena sidoo kale waxa dhakhtar ka hawlgali doona dhakhtar ajaanib ah sidoo oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka ilkaha sida daaweyntiisa sidoo kale waxa ka maqnayn dhakhaatiir Soomaali ah oo ayaguna ka qayb gali doona adeegyadan qaban doono waxa kamid ah waa beer xiridii oo lagu dhameynayo waqti kooban sidoo kale ilka gelintii oo aan laga garan doonin marka ilka lagu geliyo in ilka gashatay in kale qofka hadii xataa uu dabar leeyahay ilka gelintiisa dabar baa lagu sameyn doonaa sidoo kale waxaan sameyn doonaa buuxitaanka ilkaha oo buuxinayno waxa sidoo kale ka maqnayn ilka cadayntii iyo sifayntii ayaa isna sameyn doonaa sidoo kale waxaan sameyn doonaa inaan ilkihii safayno wax sidoo kale waxaan sameyn doonaa ilkisiina xanuunada ku dhaca afka ilkaha inaan daweyno iyo sidoo kale inaan dabarka iyo dhalaalka ilkaha sameyno ugu dambeyn waxaan bulshada ugu bashaareynaa mudada inay bisha sagaalaad inaan sameyn doono qiimo dhimis boqolkiiba 40 oo rajeynaya insha Allah inay مرشودة كيف هيستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عبد الرحمن معجون من سوريا. أنا طبيب العمل بعيادة الدكتور زكي طبيب متواجد بالعيادة. نحن هون نقدم إن شاء الله جميع المعالجات السنية معالجة جذور وتعويضات ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معالجة الأسنان وتركيب التقويم بالإضافة إلى العمليات الجراحية إن شاء الله. متواجدين فترة صباحية وفترة مسائية إن شاء الله. inta kadib hadalka waxa ka daba qaatay qaar kamid ah mas'uuliyiintii kala soo qayb galay munaasabada Dr. Zakariya iyo tiimka la shaqeynaya waxaan leenahay jazaakumullahu khairan meeradna Allah barakeeyo ardayga waxa Zakariya dugsiga sare aadan saaq ka baxay muddo ka hor hambaliyaan leenahay meeradna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo meeradna waxay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto meheradii hore u jiray ee ku hawlanaa wax qabadka caafimaadka Zakariya isku xaafadanahay chaarbanahay aad baan ku faraxsanahay in meheradiisa ka hadlo dadka ugu qosolka badan la ugu farxadda badan leena oo dadka ilkaha qurxiya markaas aanu farxad badan u helno ilkahan qurxino insha Allah anaguna meherada waanu ka warhaynaa qaabka xataa design-ka u samaysan tahay aad ku cajab garinaya marka aynu dhiirigelin caasimadeena dad badan waxa arkay degmada intii ka tagaan magaalooyinka la taga مسؤولية دولة اللي جسوا جيبات قبضتي مسؤولية الدولة اللي جسوا يوردل يرضى السهر تجارية كوي داون دون إيش قابور لازم هيو أنتي كران كهذا قبضتي هم بلي كلنا هولال أنا قلنا إن شاء الله تعالى هدي لها بود القدر أنا قو إذن كنا إذن كاشنا أنا قلنا إسكون نقنينا وروحي هراء أيضا أرق بنصوّدنا هاي إذن نحرمها دولة دويدين فريهن حفيظ والباو باتا ويدين فريهاي تلدين يضو قرالة iyadoo hadala iyadoo oo si walba u baahannahay wana dhageysanayna runtii waan baarigeynaa waan ducaynayna Ilaahay barakeeyo anuna dawladda wasahan wixii naga xana si khayr sheegay waxa weeye in shaqo abuurkan si hore loo shaqo abuur weeye dhalinyarteena kala duwan jaamacadaha ka baxdan shaqo abuur sameeyso oo qofka ugu yaraan hal qof shaqo abuur sameeyo way anu mas'uuliyadda dawladdu qaban lahayd mid kamid ah qabtay lambar 2 cashuur bixiyo noqonaya meher kasta anaga nagu soo kordha cashuur bixiyo degmadu noqonaysa cashuurta laga qaado meheradaasina waa tahorumarka aad filaysan wadooyinka quruxda badan leh iyo nadaafadda magaalada laga rajeenayo ay ku xiran tahay number 3 bilicda magaalada qayb ka noqonaysa Saki wuxuu ka badbaaday inuu wasaaraddu soo shaqo tago shaqeysay yiraahdo inuu qof kale uu tago yiraahdo waxasi iskii wuxuu yagleelay marka kow naftiisu hormariyay
laba dad buu shaqaaleysiyo shaqaabuur buu sameeyey intaasoo qofaa maanta meheradiisii ka shaqaynaya oo ummaddii u anfacay markaa dadkan waxaa ugu khayr badan qofka dadka anfaca ilaahow sakariye iyo tiimkiisa gacantooda sabab uga dhigay dadku caafimaadaan ilaahow dadka ku caafi ilaahow ada caafimaadkee dadka ilaah ku caafi ilaahow barakee ilaahow barakee ilaahow wanaag geli ugu dambeyntii mas-uuliyiintani ayaa kormeero kala duwan ku soo sameeyey guud ahaanba xarunta suxufi cisqi magaalada boorame ee xarunta gobolka Awdal.